waxaa soo gabagaboobay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug kadib loolan adag oo dhex maray musharaxiinta kala ah Ahmed Ducaale Gelle Xaaf iyo musharax Cabduqaadir Shirwac iyo Axmed Shariif wareegii labaad ee doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku haray Professor Cabduqaadir Shirwac waxaana wareegga labaad isla soo gaaray Ahmed Ducaale Gelle Xaaf iyo Axmed Shariif ugu dambeyntiina waxaa 54 cod ku guuleystay Ahmed Ducaale Gelle Xaaf oo isagu noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug musharaxa guuleystay Ahmed Ducaale Gelle Xaaf ayaa ugu horeyntii warbaahinta la hadlay أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ريال marka ugu horeysa waan horta mahad celinaya ama uga maaragtay mahadnaqaya xildhibaanada i doortay iyo kuwa aan dooran labadaba marka labaad waxaan soo dhaweynayaa xilka la ii doortay oo aan jeclahay inaan sida uu yahay inaan dhulka ka qaado Galmudug ayaan ku dadaalayaa ilaahay idinkii saan horba u sheegay aniga ajendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa horta mahadnaqi waa inta ajendahayga ugu weyn ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa inaan u qalab qaadano inaan xabad dambe Galmudug ka dhicin nabadayn iyo dib u heshiisiin iyo Galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheeda oo dhan ilaahay saasaan ka baryayaa wayna noqon doontaa ilaahay idinkii wala ahlu sunna aad iyo aad baan maaragtay u soo dhaweynaynaa walaalaha iyo waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan oo nugula shuraakoobaan dowladdan cusub oo aan dhisi doono ilaahay idinkii intaa waxaan ku darayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaan ka rajaynayaa inay gacanna siiyaan oo aysan gacmaha naga laaban waxaa isna warbaahinta la hadlay musharaxa wareegga labaad looga guuleystay Axmed Shariif isagoona sheegay inuu la shaqeynayo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Ducaale Gelle Xaaf madaxweynaha Galmudug Ahmed Ducaale Gelle Xaaf xambaliyo ayaan leeyahay Galmudug oo dhan waxaan leeyahay xambaliyo doorashada quruxda badan xorta ah xalaasha ah sida nabadda ku dhacday xambaliyo waa la igu guuleystay Ahmed Ducaale waa guuleystay insha Allah taala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codeysay madaxweyne Ahmed Ducaale Gelle Xaaf iyo intii ka codeysay in la shaqeeyo dhanka kale waxaa warbaahinta isna la hadlay isla markaasina ugu baaqay madaxweynaha cusub inuu howlaha loo igmaday si wanaagsan uga soo baxo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa waa isugu nimay maanta doorashadeena waa dhacday Galmudugna waxay dooratay madaxweyne marka xildhibaanada la doortiyo shacabku waa xisaabtamay doorashay xalaasheen xaafow xil baa yimi xilkas iyo mas'uul noqo xasan maxamed Ismaan Somali News TV magaalada Cadaado